aada u mahadsantahay kusoo dhawaashaha aad timaaday YouTube-ka runtii waan kaaga mahadcelinayaa sida diiran aad ii soo raacday. Waxaan rabaa inaan kuu sheego way gaaban tahay marba inaan sii dheereeyo. haddii aad nagu cusub tahay please subscribe noo saar, meel ayaa hiigsanaynaa sina aan u soo gelin waxyaabaha kale soo socda filmiinta ama videoda kale aad u heshid. aad mahadsantahay. Okay, aad iyo aadaan kaaga mahadcelinayaa soo dhawaashaha ama soo raacidda ay soo raacday. Waxaan rabaa dadka badi Soomaalideena way ku dhacdaa ama adduunka kale, laakiin anaga maadaama Soomaali aan nahay kaliya videogan wuxuu quseeyaa dadka Soomaaliga ah oo afka Soomaaliga ku hadla. haddii aad isku aragto ama ayba tahayba habeenkii sariirtaa imaanaysaa, hurdadii aad u imaaday inaad seexatid waqtiga kugu qaadanaysaa, ama waxaa laga yaabaa inaadan habeenkii oo dhan dadka aanan seexanin inaad tahay, ama film inaad daawatid, ama taleefanka aad ku hadashid WhatsApp, Facebook, maanta oo dhan adiga taleefanka aad ku mashquulsantahay, aadan hurdi karin taleefan la'aantiisa ama TV-ga la'aantiisa. hurdada ay kugu adag tahay waa easy. marka aan kuu sheego, waxaad samaynaysaa isku day inta aadan seexanin ama sariirta aadan isku diyaarinin in aad tirtirto wax walba oo maalintaa dhacay. maxaa yeelay maskaxdeena waxaan ku fikirnaa oo mar walba maskaxdeena oo ku jira markaan sariirta aadayno. dadka waxaan ka hadlaa dadka aanan hurdaynin, mar walba ay sariirta aadayaan maskaxdooda waxaa ku jira negative ku jira, oo waxay ka fikirayaan muxuu deekow maanta hadalkaas ka waday, asigoo negative ah, maskaxdiisoo mashquul ah oo sariirta tagaa. qofkaas marka hurdo ma ka imaanayso, wuxuu raadinayaa waay dagaalkan oo qofkan uu kugu soo qaaday, waay hebel uu ku caayay, waay shaqadii lagu diiday, waay arrintan familka ee u dhacday, waay hebel oo kugu xantay. micnaha maskaxdiioo busy ah waxaad tegaysaa sariirta. marka indhaha hataa isku qabatid waxaa arkaysaa qofkii ama su-aasha aad raadinaysa ama maskaxdiioo wada negative ah. marka waxaa kaliya ii samaysaa caawa baroobey, waana hubaa inaad hurdaysid 99% waa hurdaysaa. haddiisan caawa dhicin habeen dambe ku celi, habeen kale 3 cisho kadib waxaan garantii kuu siinayaa, ama 100% aan ku leeyahay way ku hergelaysaa. please markaa sariirta aad u sii socotid, aad salaadaada cishaha tukatid, aad sariirta ku sii socotid, waxaa kaliya ii samaysaa wax walba oo negative ah maskaxdaada ku jiro, negative ah ama maalintaasoo dhan aad soo qabatay oo mashquul iyo busy ah oo negative ah, tirtir. waxaa samaysaa oo timetable samaysataa, berito waxa aad samaynaysid maskaxdaada geli. okay, berito waxaan rabaa in markaan soo kaco salaada aan dugto, waxaan rabaa shaqo ma haysti, shaqo inaan raadiyo. waa soo kacayaa, waa qabaysanaa, raashinaan karsanaa, qoraac, waa baxaa, shaqadiyaan raadsanaa. berito waa soo kacaa, caruurtan raashin siinaa, kadib iskuulkaan geynaa, anigana waa socsoconaa. aniga iyo heblaaya israacayna waa soconaynaa 2 kilomitir 3 kilomitir aan soconaynaa. okay, caruurtan iskuulka geynaa, aniga shaqaan aadaa. maskaxdaada waxaa gelisaa in horumar aad gaarsiinaysid. futureka ka fikir, wixii basti ahaa basti oo dhan ha ka fikirin, waxaa kaliya ka fikirtaa future. caawa baroobey caawa, waanu ku baryaa please commentiga iigu soo reeb waxa dhacay. adoo negative ah sariirta fuulin, adoo ka fikiraayo maxay waxaan u dhici waayeen, maxaysaan, adoo su-aal isweydiinayo
sariirta ha fuulin waxaa fuushaa adigoo futureka ka fikiraya berito waa inaan aabahayga u aadaa berito waa inaan shaqo raadsadaa berito waa inaan saan sameeyaa berito waa inaan gurigaan dhistaa berito waa inaan businesskayga horumar gaarsiiyaa berito waa inaan iskuulka aadaa berito imtixaankayga waa inaan baasaa maskaxdaada waxaa gelisaa future 100% waxa dhacay delete garay waxa maanta iyo shalay dhacay maskaxdaada ka tirtir future ama mustaqbalka berito saanaan sameynaa berito kanaan sameynaa sidaan sameynaa adoo beri ka fikiraya hord waana hubaa 2 daqiiq gudahooda inaad seexanaysid aad iyo aad u mahadsantiin dhegeystayaasha ay dhegeysateen waa walaalkii Maxamed Deekow videoga xigana waa brain lock qofka bini aadamka oo maskaxdiisa hal meel ay ku xiran tahay sida uu furfuri lahaa oo u noqon lahaa qof oo happy ah dadka wada jecel yihiin qof oo macnaha waxyaabo kala qabsan karo waxaan ka hadlaa dadka oo ka cabsanaya inay nolol kale ama wax kale ku cusub waxa routine-ka oo shalay sameeyay weekend sameeyay last week sameeyay oo macnaha maskaxdiisa hal meel ku wareegsanayso in meel kale ka cabsanaysa marka lock brain kaasaan ka hadli doonaa insha Allah haddii aad nagu cusub tahay please subscribe isaar aad iyo aad u mahadsan tahay halka aad naga daawanaysan waa Blue Star Media ku soo dhawow gacmo furan ka noqo saaxiibadeena ama noqo saaxiibada aan jecelnahay aad iyo aad u mahadsantahay